isaga uu daba uu ku dhacay faraha ka qaada ere mana aadayna faraha ka qaad as balaayadii astoo baraka furaysay markaas sidii kolkaas u arkayba wuxuu yiri batata ma gabadha qalii dhaafi u joogsaday kolka cidan cid qabsamaysa maaha laakiin waxaas ma la aamino soo maaha wax walba quraanka ilaahay baa ka adag adi amaad isquraamin adi ninkan qof adi kuugu maqan ama isquraamin adi waa laga guuraa deriskaaga hadduu xumaado waxaa la 7 geediyaa looga guuraa laga guuraa meesha qoxaas camal joogo waa laga fogaadaa ha waa laga guuraa kolka kii asaga aan u galay aniga oo on gabar siiyey xasbunallahu wa ni'mal wakiil marka aniga baardheer markaan joogay dadkan jinniyaasha dhaawaan ahay aniga laakiin adigu naftirkaaga ma yaraysatid yaa adigu naftirkaaga waxbaa dhaawaa haddaad tiraahdo waa aniga jinniga intaan ka kortagaale waa malakamot hadduu hayo tiisi gaar laakiin qofka hadduu jinni yahay hadduu carabka calaalina haata hadda intaan ka kortagaale baardheer intaan joogo jinniya haaya bes isu kaana daaya ani asagaa soo heshiinayna markaas haddaan soo heshiin waynina wixii qof kale u raadsadan dhahay laakiinse haddaan soo heshiina cunugiina waa idan anfimaada haddaan soo heshiin wayna ani waa iga tufayn quraan maa saari jirta quraan aniga markaas oo aayado oo macnaha oo la saaraayo oo qofkaas oo la saaraayo ayaa lagu tufaa bes faraha laga qaadaa jinniga toos iisoo weerara kolka jinnigii qofkaas ay toosu iisoo weeraraa haddii ay meesha dagaal noqotona tan iska saarayna haddaan ka reeyana subaxii waa tegaayahe waxaan leeyahay hidaaradiisa la baxa qofkii waa dhaawa haddii maxaa lala baxayaa ma fahmin waxa lala baxaaya maxaa lala baxaa kitaab feed ma taqaana maya ma aqaano duurfoof ma taqaana may adigu wadankii maba baardheer maxaad u sheegeen maba kasaysid anaga yaraa laga wadaa ani ma kasaayahe dhaqankooda ma kasaaye wax yaroo gacan saara hadda ayaa la bixinaa lacagaa la bixina miya oo si lagu gala meeshaan lagu gala oo qofkan lagu quraamiyo okay quraan caadi in qofka la saaro bisaan aqaana aniga laakiin wax kale ma maqle jinniga waa kaa quraan badan yahay laakiinse waxaa waaye burjiyaa jira hadduu kaa burji koreeya geeduu kala booda bismillah burjigana maxaa la dhahaa ani inta ka hor waxaas ilaahay i tusay gabar oo 15 jir waan cunug hadda dhashay aad u malaynaysa dhabta lagu haayo oo ku fariisanayninoo inaad dhigto dhulka saas u dhigtay haddii inaad soo qaado dad dhabarka gacantaada saar oo madaxa saas u welfinaysa welif siinaysaa macnaha la iigu yeeriyo kaalay gal la yiri u dhaaw waxaa eray aniga horta jinniga meesha ku jira awooddiisa iyo xaaladiisa anoo ogaanin horey maka gelaya eri aayadahan ku akri dhaxdanada ka baxaa eri wargo-on anaa kuu keenaa inaan meesha geli kara inaan geli karin haddaan geli karana waa galaan kuleeya meesha ida waa ka guulaysana haddaan geli karinna waa ku caddayna war habeenkii haddaan base inta la isaweli ayaa kolka bad la igu furi kolka adi sidan hadda soomaali isu dagaalaysa markan baroomaha Egypt isu qaadanayo tagti ay qabatay baroome iyo jiba la isoo aruursaday adeertii san cararay beer adab le dhaxdiisa ugu dhax cararay laba qof la iga dili ciidankayga laba qof waa laga dili
yahay war labadii qof intaan ku duuga anoo hamberaan jiifka soo kacay kolka bismillah subaxii waa bixay waa u tagay aniga iga tufantaa eri qur-aanka rabbigay saara eri culimadu iskugu yeer qur-aanka rabbigay saar aniga waa gala intaan ku dhaabeen kugu sheega isma halaagay been kuma sheegay isma halaagay aniga marka qoftii way igu dhagtay waxay tiri waa ilaa iigal intaanan gelin waxaad yeeli iigalle ku geli maayo ani hunguri meeshaan oo wadkaygan u galaa ma ku galaaye ya waxaad yeeli markii qoraxda ay fooda soo dhiifto ay guduudinta waaga markuu baryahay salaada subax la tukado soo qoraxda soo afdameerinayso oo qoraxda aftiin oo guduud hoos kama soo bixinayso markaasay waxaa iri wadaadka salaada markuu iska gooyo aayadahaas ha saaraa caawa aayadahaas ha saara ilaa 3 habeen aayadahaas ha saara ogaanteeda lahaaw marka hal habeena aayadihii la saaray ani waxay igu wareegsantahay mogto ani waa galaa waa ku dhawaan waaye aayadihii habeenkii damba qoftii inay soo kiciso soo lama rabo wadaadkii ay soo kiciso oo kale gabadhii quraan iyo saar inay tiraa soo lama rabo salaadii subaxii markaan guriga maray waa bariisi 3 saac 4 saac camal yaan gurigeeda maray oo magaalada macnaha miis ii yaalay oo aan ka gadaay yaan gurigeeda maray islaantii oo taalo oo ilmihii ka noogeen oo jijiidan oo ka noogeen oo taalaan ugu tegey islaantii gabadha dhashay gartay way adkaatay bahash way adkaatay marka waa u tagay hooyadii hooyadayna anaga saako dhan saan u jiidayna hadda inay meel tahay inay noosha neeftu haba ka socotaay laakiin si qof la kicin kara ma aha waay markii aan guriga ugu galay kolkaan shaydaanka ka naareen dhagsiiyo kolka ay soo kacday صح markay soo fariisatay war muxuu maraa haa alla ma yahay walaalow banaankeega mar walaalow ani kuma haysti adaa ii gali dhee hawshan هيا anigii shalay ugu qardaadaynaysa gal waa ilaa galay iyadii yaaba alla ma yahay banaankeega mar ay leedahay waxaan iri gabadhaan ciidamada meesha joogo ciidamo aan awood u helayno ma aha iri aniga ciidamo aan awood u helaayo ma aha marka waxaa iri saanan ku kala fasaxanahay aniga adiga saanan ku kala fasaxay gabadha iyadoo sideeda aan ogaa aniga inay dhimato inay noosho ma ogi لا caafimaad fasiyo nin saas aan ahaa haddana qaxootiga markaan imaaday qof waxaan xariga ka furay 12 sano waalna alxamdulilah ayagana waxay ugu soo arkeen qof markaas la nabar dhabay oo jinni uu nabar dhabay isbitaalka la geeyey isbitaal waxba looga kasi waayey niman kale hortay galeen oo waa dhaaweyna dhaheen ka noogeen ayaa marka liima imaanin waxaa ninka qof oo qaraabo aan nahaas ahaaye kolka maanta kaali soo fiiriyahay marka hore waa iska dhooray kaali maanta soo fiiriyahay ninkaas xaaladiisa soo fiiri ay duqda hooyada macnaha adduunkunba wax la iskugu gelaa war ninka intaa sakaraad waayo ogaanteeda lahaa maxaad usoo fiirin waysi beri subaxdaan fiirinaya subaxay kolka aan baxay waa kor tegey ninkii waxaa ugu tegey hal gacanaa ka dhaqdhaqaaqaysa kow dheh hashi gacan coolidiisa laga reebaa bismillah raxmaan hal gacan bas ayuu ka dhaqaaqaa inta kale waa meyd markaan tegey
gambaraa laga dhigi waa fariisti ayaa ninkan xaaladiisa ka warramo ninkan annaga hadda waa quursanay wixii wax dhaawayna waa ka quursanay quraan saar waa ka quursanay ilaahay ku roon isbitaal waa ka quursanay quraan saar lagama quusta xaragga ee babwa wax kolkan sidii qabri lagu naftaaga bixi lahaa la basugaala ma ogi qof hadda oo rajo kaleenahayba ma aha waa daalnay meeshan qaxooti waay waxba lama hayo gacanti haddii dhaqaaqda shilina loo baahan yahay kii waxaan dhaawac ku dhaca xoolo u baahan yahay isbitaalaad geysay lacagaa loo baahan yahay meeshan waa qaxooti lacag baa loo fariistay meeshan waa qaxooti oo qof oo isagaba bil kaamil 3 shoodood oo moordi qaadanaya iyo koob saliid ee qaadana meel shaqo laga hela aanan lahayn way adagta marka hadda yaa ku jira ere hadda qof oo hadda waxaan hataa quraan saar hataa qof ku jira ma jira ere qofkan maya leer waxaa ere nimankan haddii meesha uu nimankan ay ku jiraan inaan isku dayi karaan aan fiirinaa marka ogaanteeda lahaadee waan isku dayaabaa ere hadda aniga waxba idinkama raba laakiin hadda waa isku dayaa haddii qofkan uu ilaahay un laruuro ugu darayo qofkii mid ahaantii u yaallay ayaan labada dhagood intaan aga addamay ay kursi aga garaacay ayaan ihbis ku dhuftay صح marka waxaa iri dhuubow iyo walaal haddaad tihiin maskiinkan maxasaan ugu gasheen alihin alla ma yahay oo ilaahay kuu roon yahay dad ilaahay la sooma tihiin oo dad oo diinta wax ka yaqaan sooma tihiin maxaad isku ninkan soonkiisa iyo salaadiisa iyo hooshiisa u gafiseen oo meeshaan meydda ga dhigteen dhuubow iyo walaal markaan afkay ka soo bixinayo intuu hibabababababa uu soo dhahay dhuubow iyo walaal uu yiri markaasaa iri allaha ma yahaa iri maxaasaan ugu gashay ninkan marka meeshian baalkii aan ku canaantay waxaa iri berri hadda 4 saacan idin imaaday berri 4 saac wixii ka dambeeya wixii oo ka imaada idinkaa iskale yani ilaa berri 4 saac intaanan tijaabinaa hadda 4 saac la joogaa ilaa berriyey laga gaaro caaw la berri 4 saac intaas ayaa ninkan aan hooshiisa ku jiraa aan baxnaanihiisa ku jiraa wixii ka dambeeya idinkaa iskale marka ninkii asaga ahaa saan ula xarbinayay habeenkii baryey subaxii adi 4 saac intaan la gaarina la imaaday waxaa la yidhi hooshii noo wata haba ka bixinba qofkii doomaha oo wax kuu cunaayo oo ilaahay kuu roon yahay oo daldalmaayo marka waxay ugu qaadatay baxnaanintiisa oo asaga oo intuu kaco oo istaaga oo xibnihiisa isku toosaano oo ilaahay kuu roon yahay jirkiisa dhisma bilu ugu qaatay maalinkii iigu dambaysay markii as xooggiisa dhismay wixiisa dhan ilaahay ii dhisay rig uu noqday oo jinnigana wuu taagan yahay yaa waali waay dad u dilaa bismillah laakiinse xooggiisa kaamiluu noqday cuuriyaan ma noqonin waxoogahoo yar hadda waa laga dareemaa macnaha dhankii uu ku dhuftay hadda waa laga dareemaya laakiinse cuuriyaan ma noqonin laakiin jinnigii wuu taagan yahay dad u dilaa bismillah marka kolka subaxa iigu dambaysay markaan cideedii ka soo kacay aan soo baxay asagoo labistay intuu labistay jagdhagta isku siiyey
oo uu leeyahay meel heblaan aadaa macnaha oo walaashay jirtaan aadaa leh oo kursi ku fidhiyaan u imaado ninkan waa kari laanahay meelas u jeeda ogaanteeda lahaa kaamusayr hilibkaanas duuqaasii rabaa inuu duuqaasiyu rabaa jinni waay waxaan qofkiina ma u malaynaysiin idinka dhaxdanada ka bax maalintii markii la gaaray bariisadii la gaaray adi 5 saac 4 la gaaray ayuu wuxuu ii soo qaatay bahashaan birta oo gargaramaha leh oo balankiilada laga samaysto guryahana lagu dhiso taasuu ii soo qaatay ani ma ka warqabiy kolka islaantiisa ii sheegtay waxay tiri ninkii bir uu soo qaatay guriguu soo galay dariishada intuu kaaga soo bixi calooshaas kaa dur anna guriga dhabarkiisa aan fadhiyaa markay saasay tiri qalabaan soo samaystay dhag qalabaan soo samaystay waa intays dariishada iga raadinay ilinkan uu soo istaagay kolkaan ka horgeey kolkaan ku shubay markaan ku shubay yaan afaraa iimaan la isu qabsanay kolkaan asaga ninkii xoog baday afaraa waa maxaa legdin afaraa haddii lagu dhaha afaraa iimaan leh haddii lagu dhaha soomaali waay legdin reebanaynin waay dil reebanaynin waay ya okay وعليكم السلام دادا كسو سلام marka waa isqabsanay markaan isqabsanay bahal gurma bahal qulquntaan macnaha gacanta ugu duubto bahal gurmaahan ku taagay haye waa harbiye markuu tiil dhacay yaan day kolka intuu orday guriga jiingada intuu dhex galay yaan jiingadii ku soo xiray jiingadii markaan ku soo xiray wuxuu sameynaa mataqaanaa kal intuu qaatay jiingadii kor ka fujinaa hoy hud uu siinaa gurigu iska dumina hoy uu siinaa ilmihii arrinta waa adag tahay dagaal waaye kolkaan isdil waaye ilmihii kolka gurigaan ku xiray ilmihiyaan u yeeri wiil asaga u dhalay iyo kuwo adeer uu yahay wixii aan u yeeri magaalada jiri war soo ordaayo aabihiina ilmihiina waa dhammayn anigana waa dileen marka ilmihii imaadeen waxaa iri iridan iska soo bixinaa iri ilmahaasoo dhexgeli ninkan ilmaha waa dilaa marka waa soo baxay xaafadaan imaaday waa usoo tabaabushaystay markaan ilinkiisaan usoo dhowahayba asagoo lahaayo gacmaha lahaayo ilinkiisa markaan usoo dhahay boodkan kor aan kasoo galaaba bahal kursi intuu soo qaato iga hor imaaday kolka afka wuxuu ka dhigaa ma malaysanaysid geed halis ee waay bismillah afka wuxuu ka dhigaa caytini uu maraaya naftaada waad yaabi dabgol sixrool dabgol uu ilaahay markaasaa bahal kursi faniinaas iga hor keenay kolka markii waxaa iri xarag hala ii keena adeer xarag hala ii keena maya unihayan aw cumar qur-aanka saar wali asaar war saari maya xarag hala ii keena iri ninka xarag hala ii keena iri ani asaga xaragaan ku kala bixina bahal xarag u qaadee lugahana meel isiiga xiri gacmahana meel isiiga xiri qadaadka aga istaag kolka qalabkeygana waa la dul taagan aniga saaxiib hadalaa iri maanta anaa korsanaayo oo meeshaan ka baxaayo misena adaa ka baxaysa wax ka dhexeeya maba jirtaba markaasuu calaacal afka furtay walaalow ha idilin ani walaalkaa ma ihi jinni insiyaan kala nahay koobdhe ya ani insiyaan ahay adigana jinniyaa tahee waxaa iri intaad kasoo raacdaa iri qofka inteed aga imaatay marka tuubo asaga uu ka shaqayn jiray oo tuubadan biyaha laga cabto oo xaafadda ay ka aroorato ayuu washman ka ahaa tuubada agteeda waxaa ku yaala buurtaasaa gurigayna ahaa uu yiri hadda maxaa tale ahaa ma kala badbaadayni ani adiga maxaa tale waa baxa uu yiri
ha idilin inteed ka bixiyaa iri faryareyd ilaahay ma kula ogyahaa iri rasuulka ma kula ogyahaa iri diinta 114 ma kula ogta ha uu yiri faryareyd uu daagay qol faryareyd ka baxay markuu faryareyd uu ka baxay xaragyaan ka furfuray markaasaa iri waryaha adiga yaa la dagaalsan tahaa iri weli aan jiniga raadinayaa moogta لا إلا الله محمد رسول الله ويري عمر أنا أي لدقال سما ويري أنا يا لدقال سدح بلاد أو طلعت أو طماطي يا الدون ماركين ويري بهاشان أو هانتان ماركتي أو بيها لو شفت تاسم كنت والله أبوي بسم الله أفر بلاد أو طلعت أو طماطي adduun ma arkin uu yiri aniga ogaanteeda lahaa yaan la dagaala aniga ogaanteeda lahaa hadda waxaad yeelayaa erika baqabayso oo nijaasada iska dhaq dhar fiican soo xire salaad aad tukatid salaad ama kugu dambaysaa bismillah dhamaataba macnaha meel aadaanka yeeray meel salaadka yeeriba laga tukanaa ma arkin uu yiri إلهي أمريكي نينك أساقها مغربكي أساقها إتجي أساقها إمامي نقضي أساقها إمامي نقضي مغربكي إتجي وأتكني مركاسو ليها إلميكي أو إلمهاد وأقوانا إلمهاد وأقوانا إلمهيسي وقلت إلمها قرآن سارة وليك قرآن سارة هذا أقوانا إلمها قرآن كأساري مايت marka odigaan kuu sheega kolka nin saas iyo istaabteen marka odigaas inuu gabadha iga dabad iga dhigu rabi macnaha oo walaal aan soo gelin oo waalid aan soo gelin akhribo aan soo gelin oo guri quntu uu ku siiya صح marka waxaan yiri markii asagoo ila xarbinaya u galay Sheekh Xasan waxa yiri waa ila xarbisaaba yiri kowde ya niyo waxaad sameynaysa wax iga maqaadaysidaa yiri waxa uu ii daranaa yiri maanta intaas iga maqan waxa uu ii daran inay macnaha oo afku wax laga siiyo صح لكن سواحد أديك دوتيجت أدو دوتيميل الجلسي إيو قرآن أصو أخرسي واحد إيجا مقادي سداير صح مركا أيضا أمان صباح أديك ومقيهي يعني معناها يا ويلكي وحا إيجيري قبادي يا gurigiisa tagay odayga gurigiisa ilmihii aan u tagay maxay igu yeerteen waa iska silaahay ogaanteeda lahaa ayay waa dhib maleyn ogaanteeda lahaa eri marka guriga isbuunyo ii dhigeen dhulka ee la ii dhigeen isbuunyadii markaan ku fariistay ayaa bahal nabar isku kay taagay bahal nabar waxaa fanqalkaas ilaa fanqalka ilaa dugdugayda iga istaagay markii aan wixii aan kolkaan iska naaray aan iska hagaajiyey waxaa yidhi ibraahim oo soo dhawaa yidhi gurigaan afartiisa gees waa qataaran yahay yidhi qof bini aadan ee ku noolaana ma jirto gurigaan waa qataaran yahay yidhi asagoo dhanaa tabaati ah hal yaraan kuu sheegaa baa yidhi horta aabbaha hadduu hadda ariga soo fiirin baadiyo ka imaado soomalid ha aabbaha hadduu uu soo noqdo ya gabadheedi waa furuntaha صح markaasuu yidhi aabow adigaaba ninkaan ka adage oo maad naga reebtid uu yidhi aniga ninkaan xoolihiisi iyo gurigiisi iyo waxba igama quseeyaa yidhi aniga weelkayga waxa iga quseeyaa yidhi waa garta ninkaan iyo xoolihiisi iyo gurigiisi inaan dhex gala ma rabi
laakiinse weelkayga waa ku dagaalama isma haysaana iri hadduu soo noqdo gabadhaydu waa ii furan tahaa iri markaasaa iri aabbaha inuu horta sixirool yahay waxaad ku ogaanaysaa caawa waxa baan kuu diri sameeyaa iri aayadahan caawa akri baryagal iska seexa subaxii waxaad la kulantay ila soo saasiyaa yarkii asagana babacad ahaa yar kalaa soo watay aayado qur'aan ee guriga rabta ku sii guriga aayadahan ku akriyaa caawa aabbaha wuxuu ku dhaqmaad arkaysaa oo ilaahay ku tusina aabbaha horta wuxuu ku dhaqmay marka aqoonta subaxii intuu ii soo galay yiri aabbo umrow haye xali waxaan arku yiri aabbo baabuurka raab dhex saaran oo barbar leh anigii iyo xamdiyeyna macnaha bahal mootaan saarnee huf aan ku wadnaa marka alla duqufiyaa fiirisa xaalkiisa fiiri ahayraki aabbaha noocaas waa صح nooc haddaad ku aragtay dhiitadaas haddaad ku aragtay waa iri aabbaha qof muslim ma aha qof diin xafid oo istiraafsanna ma aha diintii dadku halaagayaa marka aabbaha noocaas waaye laakiinse hadduu soo noqdo adii gabadheedii isma haysaana iri war alla yaqiin odayga markuu soo noqday gabadhii geedaha ka soo boodi anigina waa iga carare ciddina way ka soo carartay anigii guriga saadaan waxaa bali leeyahay gabadhaadi waxayba joogtaa meel heblaay ee gurigeeda ma joogta way carartay waa la ii keenay adii wax laba beri iga maqneed waa la ii keenay ayaydeeda meesha jirta ayaa ii keentay waxaa iri iska fadhiisaba nabad ku degbo yarkii ciyaar soo dirsaday aabbaha uguma soo saqajaami karo yarkii ciyaar soo dirsaday niman ayagaba oo tahdiishiisa cabuu ii soo dirsaday waxaa iri gabadheedii qofaan ku aaminaba ma hayaa ninkaan aabihii waa kala qoro jabsanay wiilkaana gabadhaan iska rabaa moogii asagaaba uu talin u baahan waa qof wax lagu aamini kara ma aha iri xoolo waay xoolo oo wadaadkan uu leeyahay waay moogii qof hadda maanta reer dhaqana oo reer lagu aamina mihin marka waxaa iri qofaan aniga aan weelkaygu ku aamina birka maalin aan kula xisaabtamo ii keena هذا على كل حال marka dambe waxay tageen maxkamadan la isku kala saarayo oo dadka lagu kala tuuro oo maxkamada muslim ma ahay waatan hay'adda meeshii aqoonka lagu soo kala baxay marka adaa xaalkaas ay soo qabtay aniga inta qaxootiga joogo wallahi ilaahay ku soo badbaadiye bismillaahir rahmaanir rahiim quraan la akhrista laakiin waxa quraanka ka adag insha Allah marka horta gabartii waa ku joogta ku soo badbaadisa ma ku badbaadinayninba oo